wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka galmudug waxay soo qaban qaabisay shir ay isugu yeertay hay'adaha UN-ka ah iyo hay'adaha kale oo quseeya xog ururinta ee ka shaqeeya galmudug. Ajendaha shirka iyo qorshuhu wuxuu ahaa in la isla meel dhigo xogta rasmiga ah galmudug oo waxaan helnay inay kala duwan yihiin riboodyada soo baxaya iyo waxyaabaha ku yaala. Marka taas waxay nagu noqotay dhibaato, waxay u keentay galmudug in ay ku wareeraan doonarada iyo hay'adihii arrimahaas ka jawaabayay. Marka sidaas darteed wasaaradda gargaarku waxay isugu yeertay dhammaan hay'adaha meeshan ku xusan oo isugu jira UN-ka inta badan oo UN agencies-ka iyo SWALAM iyo FSNAU iyo REACH iyo inta badan hay'adaha data collection ka shaqeeya marka iyo wasaaradaha dawladda ee arrimaha bulshada si xogaha sidoo kale waxaa loo yeeray clusterada oo ka shaqeeya programyada kala duwan. dood dheer iyo falanqayn ayaa waxaa laga dooday xogaha galmudug yaala, hadday tahay barakacayaasha, hadday tahay baahiyaha, hadday tahay populationka ama tirada dadka oo la qaadanayo. taasaa dood dheer laga galay oo wasaaraddu ay hogaaminaysay. oo uga mahad celinaynaa hay'adaha ka soo qayb galay iyo wasaaradaha. qodobadii u dambeeyay oo la isla waafaqana waxay u badnaayeen in data kasta oo galmudug laga samaynayo inta aan la dhammaystirin loo soo bandhigo wasaaradaha shaqada iskale, waliba wasaaradda gargaarku ay hogaamiso data aysa wasaaradda gargaarku aysa saxiixinayso aakhir aysa ku kalsoonaana in galmudug hay'ad ka sii day kartaa ay jirin ayaa la isku waafaqay instructionkaas. labo waxa la isla waafaqay xogaha la aruurinayo in marka hore intaan la aruurin ka hor la isla waafaqo meelaha. sidoo kale dawladda galmudug waxaa jira deegaano iyo degmooyin laga aruuriyo xogta iyo kuwo koray xilligii dawladdii dhexe ka bacdi oo aan xogaha hadda la aruurinayo ku jirin, taasoo keentay in xogtii galmudug ay hoos u dhacdo, yaraato dadkeedii ilaa bar in laga tagay. mushkiladaasaa keentay. mushkiladiina waxaan isla garanay degmo kasta oo dawladda galmudug ay sharciga marsido degmo u taqaano in ay si madax bannaan xogteeda loo aruuriyo ayadana oo xog saxa ka soo baxdo. arrintaas hoggaankeedana waxaa la isku wada waafaqay in wasaaradda gargaarku hayso. waxaan rajaynaynaa insha allahu ka hor 15 bisha December ee soo socota inaan soo saarno qaabka iyo nidaamka iyo qorshaha la raaci doono. dhammaan hay'adaha UN-ka iyo internationalka iyo clusteraduna ay fuliyaan haddii Ilaahay idmo. intaas oo shirka maanta ajendihiisu waana si fiican oo nagu soo dhamaaday.